aan isweydiinna walaalayaal in badan waxaan la oynaa markay dhibaata nagu dhacdo waan aragnaa dad illimaynaya ama xataa qofku markuu caroodo xanaaqu ka tambato waxaa laga yaabaa inay illini ka soo daadato laakiin isweydii maalin maalmaha ka mida ilaahay cabsidii ma la oysay ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisa darteed illinima kaaga timid adigoo keligaa ah rabbi ma soo xasuusatay subxaanahu wa tacaala ilaahay weyninkii iyo cabsidiisa ma la illimaysa qur'aanka kariimkaa adigoo akhrinaya ma ku saameeyey qur'aanka oo qalbigaaga isbeddelna ma ku sameeyey aan isxisaabinno intaanan la gaarin xisaabtii aakhiro ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noo sheegay qur'aankan kariimka ah haddii buuro lagu soo dejiyo buurahaasi inay dildilaaci lahaayeen ilaahay cabsidiisana ay la dildilaaci lahaayeen low anzalnaa hada alqur'aana calaa jabalin lara'aytahu khaashican mutasaddican min khashyati illaah qur'aankan wuxuu yidhi allah haddaan ku soo dejin lahayn calaa jabal waa buur waxaad arki lahayd nebi moxamedow buurtaasoo khushuucsan oo dildilaacaysa ilaahay cabsidiina la dildilaacaysa subxaanahu wa tacaala buurtu walaalayaa waa dhagaxyo waa aad u adag dhagaxdaas adag ee waxa weeye adeega faraha badan la leh haddii qur'aanka lagu soo deji lahaa waa burburi lahaayeen annagoo insaana bashara waxa weeye ka kooban hilib iyo dhiig iyo seede iyo lafo maxay quluubteennu u saamayn waaye kalaam ullahi tabaaraka wa tacala alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin والصلاة والسلام على رسولنا الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ولا ليال وحاجر عباده آدي آد أوين وكم إذا عباداتك إلهي سبحانه وتعالى لو قد واده وطاعه إيا عباده آدي آد أوين لكن إن بدن أو نقم إذا أي ضيعين in badan oo naga midana aan sifadaas ama cibaadadaasi aan laga helin cibaadadaasi waxa weeye walaalayaal albukaa'u min khashyati illaahi tabaaraka wa tacaala qofka mu'minka ah inuu la illimeeyo ee uu la ooyo ilaahay cabsidii subxaanahu wa tacaala dadku waxyaabo badan bay la ooyaan qof baa murugo la ooya qof baa waxaa laga yaabaa mararka qaar farxad inuu la ooyo illin uga timaado qof baa waxaa laga yaabaa musiibo iyo dhibaato gaarta ama ciil inuu la ooyo laakiin waxaasoo dhan qiimo ma laha midda qiimaha leh ee ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala fadliga weyn ku leh waxa weeye ooyinta kaa timaada iyo illinta kaa daadata ilaahay cabsidii dartii subxaanahu wa tacaala kaaga baxda rasuulka sala allahu calayhi wasalam wuxuu sheegay qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidii la ooya inuu ka mid yahay toddobada harka alla harsanaya maalin aan hari jirin ilaa harka alla mooyaane subxaanahu wa tacaala maalinta walaalayaal qorraxda la soo dhowaynayo maalinka addoommadu ay dhibaatoonayaan oo bankii qiyaamaha la taagan yahay qofkaasi wuxuu harsanayaa harka ilaahay subxaanahu wa tacaala qorrax iyo kuleelkeeda arki maayo toddoba sinfi ayuu nebigu sheegay sala allahu calayhi wasalam كما في حديث أبي هريرة إني هرسانيان هرك إلهي سبحانه وتعالى مالك تضبضاسي نبي صلى الله عليه وسلم وحو يراذي والإمام العادل وأنك مضحضة الرعيدي سيدتك ومسؤولك كيهي عدالتك دقا ننك الله بعض وحا ويبوري نن لن يراه أو كبر بار إلهي ضاعدي سي عبادة الله سبحانه وتعالى ننك سدحاد وحو النبي وكشيغ صلى الله عليه وسلم nin masaajidda ku xiran oo qalbigiisa masjidka uu ku xiran yahay oo masaajidda ilaahay jecel ninka ku xiga wuxuu nabigu ku sheegay sala allahu calayhi wasalam inay yihiin laba nin oo isjecel oo ilaahay dartiina isku jecel dadku waxyaabo badan isku jeclaadaan laakiin midaani waa alla dartii waa rajulaani taxaabaa fillaah adduunyo iskuma jecla dana ay leeyihiin oo ay maaragtay adduunyo ay ka leeyihiin iskuma jecla waxay isku jeclaadeen ilaahay dartii subxaanahu wa tacaala maxabbadaasay ku kulmaan ayada ayayna ku kala tagaan waxaa ka mida nin ay u yeertay gabar daatu mansibin wa jamaal u saaxiiba jago iyo mansilo iyo qurux intaba gabar aad u qurxoon waxa weeye mansib iyo jago iyo maqaam sare leh inay ugu yeerto zine iyo faaxisho
waxay tiraahday iga zinayso xumaan iyo faaxisho bay ugu yeertay markaasuu yidhi innii akhaafu allah aniga ilaahay baan ka baqayaa subxaanahu wa tacaala zinadii iyo xumaantii wuxuu uga haray alkhawfu min allah waxaa ka mida nin wax sadaqaystay ee sadaqadiisa qariyey ilaa aysan bidixdiisu ogaan waxa midigtiisu bixinayso yacni aad buu u qariyo wey ninka ugu dambeeya waa ninka mawduuceena uu ku saabsan yahay wa rajulun dakara allaha khaaliyan waa nin ilaahay subxaanahu wa tacaala xasuustay oo ilaahay xusay asigoo keligii ah fafaadat caynaah waxaa illimeeyey labadiisa indhood indhihiisii baa illini ka qubatay markuu ilaahay subxaanahu wa tacaala soo xasuustay dikriga ilaahay subxaanahu wa tacaalana uu la yimi fadligaasi ayuu leeyahay qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala dartii illini uga timaadee la ooya cabsida ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu rasuulku sheegay salى اllahu عalayhi wasalam dadka ooya ee ilaahay dartii u ooya subxaanahu wa tacaala inaysan naar gelaynin iska daa inay naar galaane naar jirkooda inaysan taabanin ayuu nebigu sheegay salى اllahu عalayhi wasalam wuxuu yidhi laa yaliju الnaara rajulu bakaa min khashyaة اllah naar geli maayo qof ilaahay dartii la ooyay subxaanahu wa tacaala xadiid kale wuxuu leeyahay nebigu salى اllahu عalayhi wasalam caynaani laa tamasuhum الnaar laba indhood naari ma taabato caynun bakat min khashyaة اllaah il la ooysay ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisa wa caynun baata taxrusu fii sabiili اllaah iyo il habeenkii oo dhan soo jeeday ayadoo waardiyeynaysa fii sabiili اllah ay fi ljihaadi fii sabiili اllaah habeenkii ku dhafra ee ribaad sameeya ishaasina naari taaban mayso xadiidkaa marka walaalayaal wuxuu nebigu sheegay salى اllahu عalayhi wasalam qofka ilaahay dartii la ooya inaysan naari aysan taabanaynin walaalayaal wuxuu nebigu sheegay salى اllahu عalayhi wasalam qofkii la ooya min khashyaةi اllaahi tabaaraka wa tacaala inuu jannada ku leeyahay shajaratu tuuba tuuba waa shajaraة fi اljanna waa geed jannada ku yaallo wey wuxuu yihi rasuulku calayhi الsalaaةu wasalaam طuubى liman malaka lisaanah wawasicahu baytuh wabakaa calىa khati'atih shajaratu طuuba waxay u sugnaatay qofkii carabkiisa haysta oo xaaraanta ka haysta gurigiisuna u waasic noqday khata'iisa iyo gefkiisana la ooyey xadiid kale nebigu salى اllahu عalayhi wasalam wuxuuna amray inaan carab ka haysanno guryaheennana aan ku nagaanno dunuubta iyo xumaanta aan gelaynana aan la oyno nin saxaabada ka mid ah ayaa wuxuu yidhi man najaatu yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow badbaadada maxay ku jirtaa markaasuu yidhi nebigu calayhi الsalaatu wasalaam amsik lisaanak walyasacka baytuk wabki calىa khati'atik carabkaaga hayso gurigaaga ha ku waasic noqdo dunuubta iyo xumaanta aad gelaysana la ooy inta aad tabucayso ama aad dabagelayso ama maalin walba aad wax ka sheegayso dad kale adiga dib iskugu noqo oo dunuubtaada iyo xumaanta mar walba aad samaynayso la ooy adigoo ilaahay subxaanaه wa tacaala cabsidiisa ay kugu ximbaarayso ilintaa iyo ooyinta walaalayaal albukaa'u min khashyaة اllaah ilaahay dartii subxaanahu wa tacaala in loo ooyo waa sifo ka mida sifaadkii ay lahaayeen ambiyadii ilaahay subxaanahu wa tacaala allah subxaanaه wa tacaala markuu soo sheegay jamaaca min alambiyaa ayuu wuxuu yidhaahday idaa yutlaa calayhim aayaatu الraxmaani kharuu sujada wa bukiya allaha raxmaanka aayaadkiisa haddii lagu dul akhriyo sujuuday la dhacayaan ayagoo ooynaya oo ilintu ay ka qubanayso ayay sujuud la daadanayaan markii aayaadka ilaahay subxaanaه wa tacaala lagu dul akhriyo nebigeenna salى اllahu عalayhi wasalam in badan ayuu la ooyey min khashyaة اllaahi tabaaraka wa tacaala gaar ahaan markii lagu dul akhriyo aayaadka qur'aanka xadiiثu cabdillaahi bni mascuud cabdullaahi bni mascuud wuxuu leeyahay rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu ugu yidhi cabdullaahiyow qur'aanka igu dul akhri markaasaa waxaan ku idhi buy rasuulka ilaahayow sideen kugu dul akhriyaa adigoo lagugu soo dejiye qur'aanka waxaan idhi nebigu calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi buu yidhi inaan kayrkay ka maqlo ama cid kale aan ka dhegaysto ayaan jeclahay igu dul akhri qur'aanka waxaan ku dul akhriyey buu yidhi suuraة الnisaa ilaa aan soo gaaray qowl اllahi tabaaraka wa tacaala
فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا نبي محمد وحالك السيدون نقنيا هذه أمد والبمرقاتي وذا أن صاح حاضرين ومالنت قيامة أذيقنا أنكو كان أذيق أمد هذا كم مرقاتي فريا نبي عليه الصلاة والسلام مركو آيات دا مري بن مسعود أيو يري عبد الله والكا كجوج انت أكو أكيد وصورت النبي وجهي في ريبوي فإذا عيناه تذرفان والله بضع إن دوض النبي عليه الصلاة والسلام اللي مينيه وإلي نيكدايس عليه الصلاة والسلام وحلوه وحاوي ومن خشية الله تبارك وتعالى والنبي كتأثري آيات كاس قرآنك يا الوضع الآخرين يا آدي آتك أسامين تبضا حديث عبد الله بن شخير رضي الله عنه أو صاري الإمام أبو داود رحمه الله نبي وحو يراد عبد الله بن شخير وحان أرك النبي عليه الصلاة والسلام وفي صدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء أيضا لابت النبي عليه الصلاة والسلام وكسوغان يهبو يرجوح يا شنقر أو لمدا شنقرت دريق مركو كركريو جوحا يا شنقرت كييريس وكلا لابت النبي كييريس عليه الصلاة والسلام من البكاء أو ينتظرته وأو ينو اسكو علينيو مركاسا لابتيسا waxaa ka yeeray guux lamida markuu dhariga karkarayo kala guuxa ka baxaya waan ooynay nabiga sallallahu alayhi wasallam saxaabada nabiga walaalayaal waxay ahaayeen dad sidaas oo kale la ooyay min khashyati illaahi tabaaraka wa tacaala Anas ibn Malik radiyallahu anhu wuxuu yiri nabiga alayhi salatu wassalam baa wuxuu yiri law ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan wa la bakaytum kathira soo saxaabada waaninayo la hadlaya ayuu wuxuu yiraahdaa haddaad ogaan lahaydeen waxaan aniga ogaa in yarna waad in badanna waad ooyn lahaydeen in yarna waa qosli lahaydeen buu saxaabada nabiga alayhi salaatu wassalaam ya asxaabtiisa radiyallahu anhum saxaabada rasuulka ooyin bay la daateen mid walba wajigiisu daboolay asigoo ooyintu ay ka guuxayso qatta wujuhahum wa lahum khaniin khaniinku waxa la yiraahdaa neefta qofka ka soo baxaysa markuu ooynayo sanka ka soo baxaysa macnaha waa guuxayaan oo way ooynayaan maryihiina way isku wada dabooleen waxay la ooynayaan waa min khashyati illaahi tabaaraka wa tacaala walaalayaal Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu waa ninka ummadan ugu fadli badan bacda rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam waxa aad loogu sifeeyay inuu ahaa nin aad u qalbi jilcan ilaa ay tiri gabadhiisa Aisha radiyallahu anha markuu nabigu yiri alayhi salatu wassalaam rasuulka xanuunsan ayaa wuxuu yiri Abu Bakar amra dadka salaadaha ka bixiyo imaam ha noqdo Aisha waxay tiri ya rasuulallah inna Aba Bakr idha qama fi maqamika lam yusmi' an-nas min al-buka rasuulka ilaahay oo Abu Bakar haduu istaago meeshii adiga aad taagnayd oo imaamadii salaada ah dadka ma maqashin kara qiraa'ada ooyinta uu ooynaya darteed ayaysan dadku la maqleen bay tiri qiraa'ada روايات كلا وحى كجرت إني تري إن أبا بكر رجل رقيق القلب رسولك إلهي وأبو بكر وأن قلب جلعان بيت أبو قلب جلعانية مرحض قرآن كآخرية اسمع لي كرو عدكي سأسحر يوضتك مركا قراءة دي سمغل مايان وحى كحق عمر بن الخطاب رضي الله عنه أفضل هذه الأمة بعد نبيها وأبي بكر وأنك أمضان أبو فضل بضى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا أبو بكر كدو أصيغو دجنا في صلاة الفجر أيوه آخر سورة يوسف عبد الله بن شداد وحليه كنت أسمع نشيج عمر رضي الله عنه وأنا في آخر الصفوف وحان مغلا يبو ينت عمر رضي الله عنه أنا كجر الصفوف تصفق قدام بي صفوف تدمان كجربو أنا قدال كجرا وحان مغلا يبو ينتيسا وحونا آخرين قول الله تبارك وتعالى قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون آيات داسو أخرين يبو لكن أوينتي سوحان كما غلا يبو صفوف الدنباء عبد الله بن عمر رضي الله عنه وحال الشيخ هدو أخري قول الله تبارك وتعالى ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق آيات هدو أخري وحال وأيجر رضي الله عنه إلى أي أوينتو كغالب نغطه وأوذي كروايين وسكحة كمايو عبد الله بن عباس حبر هذه الأمة رضي الله عنه نلا يرى أبو رجاء أو تابعية أو أرضي ابن عباس كمذا
waxaan arkay buu yidhi ibnu cabbaas oo labadiisa indhood hoostooda ay la mid noqdeen buu yidhaahday suunka kabaha oo baaliyoobay suunka kabahu markay baaba'aan madow bay noqdaan labadiisa indhood hoostooda ayaa madow noqday buu yidhi min shiddati albukaa ooyinta faraha badan ee uu ooyin jira radia allaahu canhu walaalayaal dadkaasi waxay la ooynayaan waa ilaahay cabsidiisa subxaanahu wa tacaala aan maanta fiirinna marka quluubteenna waxaa laga yaabaa in badan oo naga mid a haddii aayaadka alle in badan lagu dul akhriyo inaan waxba iska beddelin ogow haddii qur'aanku ku saamayn waayo qalbigaagaa jiran sababta qalbigeennu uu la qalalo waa maxa sababta ayadoo aayaadka ilaahay noo lagu dul akhrinayo aan iskaga qoslayna maxay tahay waa inay quluubteenna jiran tahay wey abubakrin radia allaahu canh waxaa u yimid waqtigii khilaafadiisa qolo yaman ka timid yamantana sida nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam waxay caan ku yihiin ama rasuulka uu ku sifeeyey inay yihiin dad qalbi jilcan waxaa la yidhi markay qur'aanka maqleen bay ooyeen markaasaa abubakar wuxuu yidhi waagii hore sidaasaan ahaan jirnay uma qasad quluubunaa kadibna quluubteennii baa adkaatay buu quluubteennii adeeg baa soo gala hadda abubakaraa dhahaya radia allaahu canhu maxaad u malaynaysaan annaga xaggeen joognaa aan isweydiinna walaalayaal in badan waxaan la oynaa markay dhibaata nagu dhacdo waan aragnaa dad illimaynaya ama xataa qofku markuu caroodo xanaaqu ka tambato waxaa laga yaabaa inay illini ka soo daadato laakiin isweydii maalin maalmaha ka mida ilaahay cabsidii ma la oysay ilaahay subxaanahu wa tacaala cabsidiisa darteed illinima kaaga timid adigoo keligaa ah rabbi ma soo xasuusatay subxaanahu wa tacaala ilaahay weyninkii iyo cabsidiisa ma la illimaysa qur'aanka kariimkaa adigoo akhrinaya ma ku saameeyey qur'aanka oo qalbigaaga isbeddelan ma ku sameeyey aan isxisaabinno intaanan la gaarin xisaabtii aakhiro ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noo sheegay qur'aankan kariimka ah haddii buuro lagu soo dejiyo buurahaasi inay dildilaaci lahaayeen ilaahay cabsidiisana ay la dildilaaci lahaayeen low anzalnaa hada alqur'aana calىa jabalin lara'aytahu khaashican mutasaddican min khashyati اllaah qur'aankan wuxuu yidhi allah haddaan ku soo dejin lahayn calىa jabal waa buur waxaad arki lahayd nebi moxamedow buurtaasoo khushuucsan oo dildilaacaysa ilaahay cabsidiina la dildilaacaysa subxaanahu wa tacaala buurtu walaalayaa waa dhagaxyo waa aad u adag dhagaxdaas adag ee waxa weeye adeega faraha badan la leh haddii qur'aanka lagu soo deji lahaa waa burburi lahaayeen annagoo insaana bashara waxa weeye ka kooban hilib iyo dhiig iyo seede iyo lafo maxay quluubteennu u saamayn waaye kalaamullaahi tabaaraka wa tacaala waa meelahana laga haysto wey waxaadna ogaataan walaalayaal hadduu qur'aanka kariimka ku saamayn waayo wax ku saamaynaayo lama arko waxaad arkaysaa dad qur'aanka markay akhrinayaan wax saameyna uusan ku lahayn laakiin markii la rabo in la guubaabiyo anaashiidaa loo shidaa markaasuu oynayaa inta jadboodo qur'aanka la oymaayo laakiin nashiida hadduu maqlo waa oynaya qur'aankii la oymaayo hadduu maqlo laakiin waxaa laga yaabaa heesuu dhegaysto inuu la illimeeyo ee uu la qiiroodo taa macnaheedu waa inuu qalbigiisa jiran yahawe quluubta wax lagu daaweeyo anfacu dawaa'in lilquluub waa alqur'aanu alkariim daawada ugu nafciga badan ee quluubta lagu daaweeyo waa kalaamullaahi tabaaraka wa tacaala walaalayaal quluubteenna aan ku daaweyno ilaahay subxaanahu wa tacaala dikrigiisa iyo cibaadadiisa saxaabadu waxay ahaayeen rasuulku hadduu waaniyo sala allahu calayhi wasalam quluubtooda waa gilgilo jirta qofka inuu qalbigiisa dhaqaaqo oo qalbigiisa uu baqo markuu ilaahay dikrigii soo xasuusta subxaanahu wa tacaala waxay deliil u tahay qalbigaasi inuu nool yahay laakiin qalbi aan xarako lahayn qalbi haddii janno iyo naar laga sheekeeyo aan saamoobaynin qalbi haddii qur'aanka uu maqlo aan isbeddel ku imaanaynin qalbigaasi qalbi khatar ku jira wey quluubtana hadday fasahaado walaalayaal jirkao dhan waa fasahaadaya marka ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ka baqno diinka ilaahay aan u laabanno qof walbow qalbigaaga muraajacay allahuma salli calىa muxamedi wacalى aali muxamed kama sallayta calىa ibraahiima wacalى aali ibraahiim wbaarik calىa muxamedi wacalى aali muxamed kama baarakta calىa ibraahiima wacalى aali ibraahiima inaka xamiidu majiid اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه
وأرنا الباطل باطلا